dawladda maanta joogtaa way rabtaa wax walba systemka nidaamka iyo sharciga inay ku socdaan madaxweynaha maxaa ugu xaqiijinaysaa inay rabto dawladda maanta jirta waxay u rabtaa maxaad ugu xaqiijinaysaa wixii in procedure la soo marsiiyo hadii dawladda procedure ka horeysay maamulkii madaxweyne Shariif hadii nidaamkan uu kaga tagay meesha oo saxiixay oo magacaabay magaalooyinkan procedure loogu talagalay ay mari lahayd oo carqaladaha halkan ka muuqda iyo warqadahan saxiixa ah oo prime minister kaga qeylinayo oo leeyahay sharci darro way deedka laga bilaabo ilaa deedka wixii magaalo ah la magacaabay hadii ay jiri lahayn way asixi lahayd maanta waxa jira soo waxa maanta jooga ma baarlamaan oo iyagu u jooga inay wax alla wixii sharciga nidaamka waafaqsan ay meel mariyaan in ayagu lagu soo celiyo soo in la ogoleysiyo ma dadweynaha iyo dadkii deegaanada la magacaabo maxamed waxaan isku ogolaadaan xildhibaan wuxuu ku doodayaa maba u baahnaa in baarlamaanku hadda isku mashquuliyo shaqooyin kale u yaala howlo kale inuu ka hadlay tahay dawladdu inay waxaan isku mashquulsan ma aha madaxweynihii ka horeeyay magacaabay gobernatooriyaasha wixii loo magacaabo waxay soo dooranayaan laakiin Cabdiqaadir hadaysan procedure sharciga aysan marin see waayay dawladdu ugu talagelaysaa in nidaamka federaalka marka waxaan yeelaynaa si looga gudbo mushkiladaha hortaagan qaybaha Soomaalida ama qabaa'ilka Soomaalida ku aadan wada weydiinaysaa in yar taa ka jawaab looga gudbo hanaan dawladnimo oo xasiloon ay u yeeshaan dadka Soomaaliyeed waxaan anigu taladayda baarlamaanka Soomaaliya ee maanta jira u jeedin lahaa iyagoo ka amba qaadaya waxaa jirta theory la maro ama ay khasab tahay inaan ka dhawaajiyo maadaama fursad barnaamijkan uu siiyay bal inaan shacabka Soomaaliyeed gaarsiiyo dareenkayga ku aadan qaabka loo xalili karo ishaysadka ka taagan sida aad sheegaysay qabaa'ilka iyo deegaanada qaarkood deegaankii suurtagal ay u noqoto ama la arko resourceska isaga oo waxa jira guddi commission ama guddi dawladdu ay u saarto in xaafadaas laantaas degmadaas tuuladaas gobol loo dalacsiin karo tuuladaas degmo noqon karto degmaduna gobol noqon karto waxa jira guddi farsamo yaqaan oo dawladda markaa jirta ay u dirto marka maadaama ay taas suurtagal noqonin waxay u taagan tahay waxa suurtagal ah baarlamaanka Soomaaliya ee maanta jira go'aan inuu ka qaatay ah waa la aqbalay iyo lama aqbalin arin kale oo xasan tahay in lagu soo celiyo dib waa sidaas oo lagu sameeyo hadii xal loo arko shida male laakiin arintan hadda aanu ka doodayno inay sharci ku salaysan tahay in kala muddo kaaga jir ma tan sharci ma aha rag haystay ahaayeen inay warqado iska daba qoraan inay shar warqado iska daba qoraan oo ninay ana waxaan diidayaa warqad ministerka uu qoray inay sharci darro maya ana inay tahay arin sharci hadda soo ugu raacin sharci ahayn maya tabareeri waxaan rabaa in mid ku cadaato anigu waxaan joogay magaalada Muqdisho rag loo aaminay mas'uuliyado kuwa ugu sareeyay hanaan dawladnimo ee Soomaaliya ka hana qaada ay yeelataana dood dhexdooda ahi caawa inaan mujtamaca Soomaalida dhagahooda maqashino laakiin waxaan rabaa inaad mid ogaato in ra'iisul wasaaruhu go'aan uu madaxweynaha xafiiskiisa ka soo baxay jawaab warqad uu ka bixinayo meesha ma aha suuq ma aha Soomaha ra'iisul wasaaraha wadanka ciidiisa ma jirto mana diidani shaqadaas Soomaaliya ma la diidin ra'iisul wasaaraha laakiin waxa muhiim ah inaad ogaato cidda wax madaxweynaha waata su'aal ku weydiinaya marka arinta meesha taagan oo dad badan ay ku doodayaan waxa kamid ah waxay leeyihiin madaxweynaha isagoo magacaabay degmooyin iyo gobol ayuu haddana markii ugu dambeysay wuxuu saxiixay uu aqbalay dastuurka wadanka hadda kumeel gaarka oo shaqeynaya inuu yahay dastuurka wadanka dadka saxiixay oo ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed iyo odayaashii dhaqanka iyo ergadiiba inay ansixiyaan ayuu dhowr meel sheegay dastuurkiina waxa ku qoran 18 gobol isagiina gobol kale ayuu ku daray iyo dhowr 20 degmo maxaa meesha ka soo bixi kara marka waxaan jeclaan lahaa balina in yar dib ugu noqdo dhinaca teknikada inay khaldan yihiin la isku diidayo qaybahii la waxaa dhici karta muddadii aan magaalada Muqdisho joogay wax badan oo dhinaca siyaasadda dhacdooyin dhinaca siyaasadda oo fara badan inaan goobjoog u ahaa laakiin qaarkood ma aysan habboonayn inaan masraxa uga gudbiyo dadka Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa laakiin mid inaad ogaato oo ah waxa
soomaalidu ay ku heshiisay wakiilo ka socda gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda soomaaliya ee 18 ah marka lagu daro Somaliland, Puntland, gobolada dhexe jamhuuriyadda soomaaliya ilaa koonfurta soomaaliya wakiiladii bulshada doodii ka horeysay ee aan lahaa halkeebay ka imanayaan su'aashii ahayd ee aadna weydiisay dadka aad leedahay waxay ka qayb galayaan ansixinta dastuur Soomaaliya ay yeelato waa tii aan u sheegay dadka Soomaaliyeedna waa ku noqon karaan barnaamijkii xog waran ee hore uga baxay TV-ga doodaydu ay ahayd inay jiraan wakiilo shacbiga Soomaaliyeed hogaamiyaasheeda tagayana magaalada Muqdisho si loo ansixiyo dastuurka hadii dastuurka la ansixiyay ay ku qoran tahay 18 gobol doodu isaga dhamaystiray uma baahna in dib ugu noqosho kale iyo dood la geliyo jiritaanka 18 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliya inaan marka u gudbino shacabka Soomaaliyeed maaha maxaa loo gudbinayaa shacabka inay arintan hadda u taala baarlamaanka iyo nidaamka dawladda hadda jira hadda cid kale oo xallin kartaa ma jirtaba doodaha dhinaca sharciga ay ka taagan asaaska gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda ka abuurmay burburkii dawladnimada Soomaaliya baarlamaanka doodiisa u taala ma waxaad ogolaatay hadda oo in waxa la magacaabay aanay sharci ahayn oo gobolka iyo degmooyinka u Sheekh Shariif magacaabay ma dhihin aniga waxaan rabaa warqadaha dadku ay ku heshiiyeen ee loo gudbiyay baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ujeedo kasta uu ka lahaa in Hiiraan loo qaybiyo labo deegaano ka tirsan macnaha tuulooyin ka tirsana dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya oo aan xusuustooda qaar hadda warqadihii u siixay aan qaarkood arkay halka laanta buuro la dhaho oo xabsiga dadka lagu xiri jiray oo kale koonfurta Soomaaliya ku taala magaaladii yeelataa degmadii tuuladii xaafadii yeelataa sources ku filan oo dhinac kasta ah oo waxbarashada ah caafimaadka ah muxuu ahaa iyo waxyaabaha la xiriira nolosha aadanaha waa buuxin kartaa degmo buuxin kartaa hadda magaalada Muqdisho oo kale malahayga waxaad ogtihiin in 16 degmo ay ahayd magaalada Muqdisho burburkii dawladnimada Soomaaliya xaafad baan u aqaanay aniga dadka Soomaaliyeedna ay u yaqaaneen dhinacii ciidamada xigtay ee Daynila loo yaqaan maanta waxay leedahay iskuulaad ay leedahay waxbarasho ka socota waxay leedahay maxay ahayd tagad diiradeed bay leedahay waxay noqotay magaalo dad ay camireen waxa dhici karta xaafad ay 5 qof oo degan yihiin dadka in xoog lagu geliyo jiritaankeeda oo ah xaafadaas laantaas degmadaas waxay noqonaysaa degmooyinka qaarna dadka ay diidaan waxa la rabaa Maxamedow inaan xaqiiqada u soo jeesano aan iska deyno wixii dib u dhac u keeni kara bulshada Soomaalida hadii Soomaalidu ay heshiis Cabdul Qaadir ku noqoto jiritaanka degmooyinka Sheekh Shariif magacaabay ahlan wa sahlan waxba kama qaba aniga hadii la diidan waxay la tahay soo arin wali rabitaanka waxay la tahay baarlamaankii diiday isaga sheegay hadda kama inaan hadlay nidaam baa jira dawlad baa jirta dastuur baa jira procedure loo maraa jira waxaanu ka hadlaynaa waa taas inaan kaliya ku ekaanin gacan oo arrimo siyaasadeed aysan gelin oo dhibaato dambe iyo effect dambe aysan mujtamaca Soomaaliyeed ku yeelan oo ayna noqono dastuurkii iyo constitutionkii aanu ku heshiinay in la meel mariyo oo raali lagu noqdo Soomaaliya waxa cid diidan constitution ma garanayo aniga hadda cid aad leedahay cid diidaysa maanta ma jirto waa la aqbalay Soomaaliya waxaan shacabka u sheegayna wax kala ma in systemkii hadda ugu dambeeyay labadii bilood iyo bishii ugu dambeeyay magacaabida magaalooyinka ahaa habka ay sharciga ugu fariisan karto iyo sababta loo magacaabi karo iyo sida hadda ay ku suganta baanu aan qaba aragtida ay tahay inay dawladda maanta jirta legislative-ka ah ay review ku samayso oo ay u soo marto procedure looga baahnaa magaalooyinka hadii guddi loo magacaabo guddiga loo diro soo arka u soo celiya golaha fulinta iyaguna markaas sidii ka bacdi ay u marsin lahaayeen la geeyo baarlamaanka laakiin hadda inaanay dawladda u qaadan sida loo magacaabay baad qabtaa taas hadii sharciga waafaqsanayn oo arrimaha halkaan hadda aanu kaga hadlaynay sameeyay dawladdu ku maxamed waxaan ka saaraynaa hadii gobol waxaan rabaa inaad gobolna madaxweyne magacaabay gobolkan iyo degmooyinkan madaxweyne magacaabay oo waayahay hadii madaxweyne magacaabay hadda constitution 18 oo sax muxuu sax madaxweynuhu maadaama waxaan rabaa inaad mid horta ila ogolaato hadda dastuurka aan dib ugu soo noqono dood halkii ay mareysay oo ahayd asaaskii jamhuuriyadda Soomaalida 8 gobol
ilaa 69kii la soo gaaray dowladii kacaanka ee 21 sanadood jirtay 10 gobol ayay Soomaaliya ku kordhisay mar lama wada magacaabin anigu xusuustayda ilaa waxaa dhici karta tasiilaadkii ay haysatay xukuumadii berigaa jirtay tan Sheekh Shariif inaysan haysanin dhinaca ammaanka dowladii berigaa jirtay gacanteedu waxa ku jiray gudahaan gobolada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka kooban tahay la islama meel dhigi karo dhinaca miisaanka maamulka dowladnimada ee Soomaaliya laakiin waa decreto presidential halkii laga soo saaray 10ka gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya lagu kordhiyay madaxweynahan wadanka oo dhan uu san gacanta ku hayn Muqdisho iska joogay sidaa darteed waxa ma magacaabi karo miyaa leedahay madaxweynaha hore laakiin wadanka dhan gacanta ku hayn sidaas ba combeer looma samayn karo horta labada lama samayn karo maamul jiro oo central ahaa iyo mid complete lahaa iyo mid burburay waxa laga hayaa 2000 wixii laga bilaabana waxay ahayd xal u raadin si dadka dhibaatada qoriga looga dhigi lahaa